هرمريا سيدة الله ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام دولة عن إسلام هين وعادلة ويشرت لكن دولة إسلام شيئا سواء عادلة هين مسجرت وأي حق خلاف السنن ربي إلهكم قولي إلهي سبحانه وتعالى وحوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي قوم أما قف ما بدل حالة كجران إلى يوم إسك بدلان مركا وحا عد مركا آيات على ود الاستاغو حالة أي كجر رواتب ما هي ما إسبدل سوء ملائكة انت لغاك أنا السماء كامل رفعين سوحا ألا كيني حال جروية ألا أبوري إنك أبوري مركا إنه وإن أينو إسبدل سي مركز أي حالة إنه إسلبت الشو بالودية هدو هالله ما هالله يساسو كربي لكن ما كذا انتهوا وما كذا هرين انت أسوا ماذا كل ولا بالبرية لكن أصنام كلا على صواب أبدا ما شاء الله ده هاوش أي فلوس لين بفلوس النبي الله محمد on the other hand عليه الصلاة والسلام ما كان صدق يتمنى سنة وشوي وح تشريعه أو أحكامه لا مفلين بل لا مش دشين حتى dadka waxa laga dhisay mabaadiida iyo qiyamka iyo akhlaaqda illa dhiso dad wax aaminsan waxaasna ka rusheega xambaara jiilka dambe iyo naftooda karsiya madiina la tagay dawladdu waa la dhisay islaamka ahayd kadib baa tashriici yimid soonkii salaadii xajkii macaamilkii insaanka dawladda islaamka markaas oo fatxul maka dhacay oo maka lagu noqday baa kuwii dhisay وجاء الحق وزهق الباطل ولا مارتي بابل كلا بري حقنا وايمد كل بسي باصدح بقول اللي احنا كي سنه اما كيا لي غعميده كدويه دبنا الله دسن سببتنا وحي احيد وقت بدن با قادته حاول بدن با كغشو عذاب بدن با لا كلمون لكن فاينلي arrimahana waxa fiican faynalkooda finally waxa lagu guuleystay in kuwii dhisay iyaga gacmahooda ay ku dumiyaan dibna aan loo soo celin bal inta kaliya maahe in ay hogaamiyaan bashariyada in ay sameeyaan iktishaafat in ay xadaarada maanta adduunku dhisan yahay ay u ahaayeen base aan la inkiri karin oo xataa acdaadoodu ay maanta qirayaan waxaan kaga baxayaa haddaynu fahamnay dhibaatooyinka in haysta baahida aynu qabno isbedel haddaynu fahamnay in tagayirku waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay mabaadi'da iyo qiyamka iyo akhlaaqda yaa sameeya waynu ognahay waxna iskama samaysmaan oo dadku iyagoo fadhiya waxa weeye waxay ma samaysmaan waxaa sameeya alladhi yaquudu camaliyat التغيير waxa weeye hum ahlu الfikr wa ahlu الطموح dadka inta badan hogaamiya isbedel dhicitaankiisa suuran la geliya bacdallaahi waxa weeye waa dadka fikirka leh aqoonta leh culimada ah haddana ay u dheertaa intaa kaliya maaha طموح qofkan inuu diyaar u yahay inuu wax bedeli karo وهذا كلمة الإنجليزية مثلا responsibility waxa la yiraahdaa waa qofku inuu mas'uul yahay mas'uul وحوي إن أقدر الشعور بالمسؤولية وحوي قفك إنه دريمه إنه مسؤول هاي حداك ده هي وحنا ده محنك غلان كرا ساسا لوجر ودك محنك غلان كرا ساسا هيرك لوجر محنك غلان كرا ساسا نفس اللي نعطي محنك غلان كرا ماها هنقول رياكتيف هنقول قف وحي والمرضى دعاء وكتبابه لكن واحد نقطة برواكتيف حالة كستر أو أتكوشة الإله سبحانه وتعالى وحكم أموري إنها المحكمة بلكتت marka طموح واكاس اضاء اقول له اضاء مفكر بعضها وعلى كتر اسبوع العسل والله والزمان انفتن اي بعض مشاكل واسك اخر الزمن خيرك اللي عيالك كذا هذا اسك قابسدوس مستاسك اشتغل كنت كذا فلله الحمد لكن ارك انت وكويه marka طموح waa loo baahan yahay waxaad moodaan ku yaraadaaday marka insaan قليل الطموح ama قليل الثقافه qofka haduusan aqoon lahayn thaqafad lahayn قليل الطموح يرضى بالواقع وحرالي كل نقولها واحد مركا هريا قفنا حدوسا أقوال لهين أركت دار لهين مبادئ وحكم بالسين كدبنا مركو انت حدنا هلا وصل ديار وحين انت لابسنا وخلدنا وصحمه ومن بدباديو قفكاس مركاس وحرالي كل نقولها ماركتي حالة وكتشرو أما هفعناته أما هصحناته ولذلك وحد أركز المانتا الصومالي انت بدن ولو يريا وعارف أمدن الديار وصبح وحي الله شيء قاعد حمبارته كده غلط بس because طموحنا ملا
ثقافنا ملأ وحنا ما قرنيو وحا كدن بدا ما قرنيو وحنا ما قرنيو سيمبل وحا موقته وحن maanta loo soo sheegay waana waxyaalaha hadii Soomaaliya destruction ku dhacay destruction ka anigu aan aaminsanahay ku dhacay ee ugu badan wuxuu ahaa xagga tacliinta ama xagga thaqaafada oo aan laga dhisin wala ummad thaqaafad leh oo wax u xiriirinaysa waxan maanta ay ku jirto kuma jirtana mar hore ka bixi lahayd runtii waxaan kaga soo baxaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee alkayisu min daana nafsa qofku inuu intuu iska seexdo oo shiftigiisa garaaco ciyaalkiisa korsado oo daraasaadkiisa kalena aado uu yiraahdo waxba isbedeli doona insha Allah ma dhacayso rasuulku wuxuu leeyahay alsan qofka caaqilka waa qofka intuu naftiisa xisaabo adduunka aakhira wax u fiican samaysta caajisku waa maxay qofka halka iska fadhiya haddana wuxuu rabaa ilaahay baa rabaa sahli doona kulli arrimaha ilaahay ma sahree ilaahay wax kasta wuxuu u yeelay ummad u kacda iyo dad wax ka qabta oo maaragtay ummadda kalena ka badbaadiya ilaahayna uu sabab uga dhigo hadalkayga intaan kaga soo baxaya iyagoo ay joogaan culimadeedii iyo dadkii mufakiriinta ahaa laakiin runtii cazumaadda umaan aqbalay raallina laga ahaado wixii aan sheegay wixii khalad ah nafteeda iyo shaytaan bay ka yimaadeen wixii saxna min allaahi waxaana ilaahay inooga baryayaa inuu dhibaatada iyo masaa'ibka ina haysta aan ina soo marin rajayna doono insha allah inayna soo mari doonin uu inaga saaro aad baana ugu mahadsantihiin dhegeysigiina wanaagsan wabillahi tawfiiq wasalaamu